inan 20 jira oo ka hesha la sheekaysiga ragga waaweyn waan gartay waxay inantaa 20 jirka waxay ugu baxdaa ninka 45 jirka iyo 50 jirka la sheekaysigiisa waan gartay waxa ku leedahay ninkii ku dhali karaa ku dhaqi karaa waan gartay waxa taa cagsigeeda ah waxa arkaysaa nin wiil dhalinyaro ah oo 25 jir ama 20 jiro isaguna ka hela markaad aragto imka qof isagoo 25 jir 30 jir dadka aan raacin oo koodhan kaliba aan hayo dadka lagu kalsoonaad way ku day karaan fajiba ku laaqay oo ku gowracaya sida ogaad culimada barbaarintu waxay raadaan ma jiro eray ilmaha yar dambi agtiisa ka ahi markuu yar yahay maxaa la sameeyaa khaladaadku ilmuhu galo wala iska indhatiraya wixii wanaagsan oo ku hadlana wala dhiirgelinaya qisan kugu dari lahaa waan gartay waxa dhacday hooyo ayaa waxay ka caabatay ilmaheedii yara waan gartay inan yaro 4 sano jira bay haystaa waxay tiri ilaa iyo maalinta inanteedaasi dhalatay way inacabtahay cajiib way iga fogaanaysaa hooyo markaan aad gidaarka koonaha istaagaysaa wakaas waan gartay dabadeedna ilmihi yara way yaabtay dhakhtar bay u tiri markaa barbaarinta ku takhasusay waxay ku tiri ilmahayga yara dabciga noocaasan ku hayaay bal sheekh doctor maxaad odhan lahayd deedna wuxuu su'aalo markaa weydiiyay waxa kamid ahayd ilmahayga markaad uurka ku siday miyaad nacabayd cajiib yani miyaad karaahiyeysanaysaa uurkaad sido haabay tiri oo ninkan isku dhacnayo deedna waxaan islahaaba kan habaarqabaha wad kala tegaysaan ilmahanaad caloosha ugu jirto balaayadan maxaad u qaaday waabad kala socotaa wad kala tegaysaanbe uur buu kugu yeesho waa kan culays iyo dhibaato kugu soo kordhiyay dumarku inta badan haddii aanay ninka markaa aanay isku faraxsanayn inay ilmo u qaadaan ma jecla haddii laakiin jacaylkoodu xoogiyo waxaan inaan ilmo kuu dhalo oo caruur kuu dhalaan jecelka marka uu sheegay wuxuu ku yidhi dhibaatadu halkay ka timi waa halkaas weeye saa sheegtay oo barbaarintu waxay soo bilaabataa uurka hooyadii ilmaha yar soo ku jira markuu ilmaha yar uu banaanka u yimaado waxa jira cilmi lagu daraaseeyo waxa weeye ilmuhu maraaxish korniinka iyo heerarka korniinka uu maro cilmiga waxa loo yaqaan developmental psychology theories fara badan baa jira qaarkood ilmuhu kala tijaabiyay laakiin laba ugu caansan mid waxa uu ka waramayaa ilmaha yari inta uu yar yahay xageebu farxadda ka hela waxa loo yaqaan psychosexualka xageebu muxuu farxadda ku dareema مثلاً سنة دي بركة وجوه يا مال الله سنة وجوه الريا المها يروح فرحدي سكرها دي أفكيسة وحو شيء جالس إنه تروح وكو جادا كليه مركو شيء جا أفك جليو وقنينه هافك وقش وكان أنت بدنا صولك واك أفك كل شيء مركز تيلمية راك حنتي سوى أفك اللي جليا وتشقى يا هتاد شيء قلن هتاد اللي يبتقى لك مركب وقاضي أفك جلينا يا دق هتاد اللي يبتقى أفك جلينا يا مركو أفك جليو وجاني الشيء إنه شيء تريه markuu 2 sano soo gaaray ilaa 3 sano wuxuu ogaanayaa meel labaad oo uu ku raaxaysan karaa inay jirto oo waa xagee wuxuu ogaanayaa inuu dabadiisa waxa loo yaqaan anal stage marka wuxuu isku dayayaa inuu saxaradiisa ka kantaroolo dabeedna hooyadii intay soo kicisay ilmihii raabay beermaanka ku fadhiisanaysaa dabeedna waxay soo ha saxaroodo ha kaajo ma kaaje mana saxaroonayo isku adkaynaya marka hadhow marka laga kiciyo beermaanka laga kiciyo la geeyo sariirtii la geeyo freshka la saaro buu sii deynaya marka wuxuu ogaanayaa meel uu maamulay inay jirto markuu soo gaaro 3 sano iyo wixii ka badan ilaa 6 sano uu yimaado 3 sano ilaa 6 sano inta u dhaxaysa wuxuu ogaanayaa meel kale uu maamulay inay jirto xubintiisa taranka taabashadeeda iyo waxaas ku raaxaysanaya waxa dabeedna uu xiriir kala dhaxaynaya isaga iyo hooyadii ilmaha yari marba genderka uu yahay nooca ka soo horjeeda uu jeclaanaya mesela inantii yareed waxay xiriir dhow la yeelanaysaa aabaheed waxay ka maseeraysaa oo yaani dareenkeeda gudaheeda ku abuurnaanaya hooyada maxay aabaha kaga wareegaysaa waa kaas dhinacaas oo waxa weeye ilaahdaan phallic stage ilmihii yaraana waxa wiilkiina wuxuu jeclaanayaa hooyadii wuxuu xataa ka maseerayaa in aabihii ka ag dhawaado hooyadii waxa arkaysaa ilmihii yaraayo hadduu arko hooyadii aabihii wada fadhiya oo gacmaha haysta intuu dhexdooda galaabo gacmaha ka kala furaya soo gacanta qabsanaya hadda ma aragtay marka dabcigaas xilliga la joogay waa xilliga ay tahay waalidku inay ilmahooda ku ilaaliyaan ninnimadiisa iyo gabadhnimadeedaba sheekh Jamaalow su'aalan ku siinayaa ilmu markuu xilligaas oo kale uu ku jiro waxa sameysanta dhaqanka la yiraahdo Soomaalida rag gabadh way ilmo yaro waxaan leeyahay inan 20 jira oo ka hesha la sheekaysiga ragga waaweyn waan gartay waxay inantaa 20 jirka waxay ugu baxdaa ninka 45 jirka iyo 50 jirka la sheekaysigiisa waan gartay waxa ku leedahay ninkii ku dhali karaa ku dhaqi karaa waan gartay waxa taa cagsigeeda ah waxa arkaysaa nin wiil dhalinyaro ah oo 25 jir ama 20 jiro isaguna ka hela islaamaha waaweyn oo la sheekaysto waan gartay sababtu waxa kale waa markuu daadiisu 3 sano ilaa 6 sano ay mareysay ba genderka xoogana uu yahay isaga ka soo horjeeda
matalan guriga hooyada ka talinaysa odaygu wuxuu isku ahaa inaan dee biilna reerka kuma darso iska tabcaan iska soo gala buu hayo halkiisaas iska geeyay islaanta amarka iyo waxba bixisa guriga oo dhan bayada diiq ka ah tawana ilmihi yara wuxuu ku dayanayaa hooyadii buu raacaya talaabooyinkeedu qaadaya hadalkeedii buu yeelanaya u dumaroobayaaba qaybta unuusada iyo dumarnimada ilmaha ku badanaysa hadhowto waxa uu jeclaanayaa qof kasta oo gabadha la daa hooyadii la daa uu jeclaanaya hablaha yaryar waxa uga bixi mayso gabadhiina waa saas oo kale iyada xilligaasi waxa xoogan matalan aabaheed baa guriga ka taliya islaantii waxa weeye waa la doomad gareeyay hooy ilmihii inantii waxay mar walba jeclaanaysaa aabaheed isagay ka ag dhowaanaysa nooca waxa loo yaqaanaa sexual aniga ku soo ururinaya nooc kale waxa jira iyagu ka hadla psychosocialka oo ah ilmuhu muxuu ka samaysanayaa bii'ada iyo deegaanka uu ku sugan yahay stages fara badan buu maraa stageskaana soo koobaya sanadii barhka ugu horeeya ilmuhu noloshiisa caalamka keliya uu leeyahay waa hooyadii xilligaas waa xilliga ilmuhu uu samaysma laba sifo oo iska soo horjeeda mid ka mid ah kalsooni iyo kalsooni daro trust iyo mistrust labadaa sifada uu marba samaysanaya waa xilligaas haddii hooyadii ay ilmaha ilaaliso oo marka uu qayliyaba naaska afka loo geliyo oo xafaayadda laga bedelo oo la daryeelo oo la aamuso oo laabta mar walba lagu hayo kalsooni buu ilmaha yar samaysanayaa ah markastoo ay noloshu adkaato uu baahi u yeesho cid daboolaysa baa jirta xitaa maalmaha dambe uu sanadii wax soo gaadhay haddii hooyadu ka habsaanto waxaa niyadiisa ku soo dhacaysa fikir ah haddii xitaa hooyadaha kaa soo habsaanto way kuu iman doontaa iska sug kalsooni buu samaysanaya sifadaa uu xilligaa sanadii barhkaa Sheekh Jimcaale uu samaystay waxay anfacaysaa markuu weynaado inuu dadkii ku kalsoonaado oo axad markaa wadagshaata war hawshaasaynu ku ballansaasaynu yeelana inuu kalsoonida uu qaato sideeda uu fuliyo waana kalsooni daraanayma haddii laakiin taas ay meesha ka maqnaato oo aabihii iyo hooyadii baa isku dhacsanba ama ilmahan hooyadii aabihiiba way dhinteenba ama aayadiiba soo korisay ama habaryartii amaba inanta weyn baa lagaga tegi jirayba iyana may daryeeli jiray ilmahaas kalsooni daro xilligaa ilmaha yar samaysanaya hadhow markuu weynaado cidnaba ku kalsoonaa maayaba markaad aragto iminka qof isagoo 25 jir 30 jir dadkaba aan raacin oo koodhan kaliba aan hayo dadka laguma kalsoonaado way ku day karaan faji bay ku laaqay way ku gowracayaan muus diir bay ku dhigeen adigoo wadada maraya waxa qof kaaga sheegay inaad aragto dhibaatada waxay ka haysataa waa xagee sanadii barkii ugu horeeyay noloshiisa sanadii barkaa markuu ilmuhu ka soo gudbo 3 sano uu soo gaadho waa xilliga uu ilmuhu isku dayo inuu sameesto sifada loo yaqaan autonomiga waa maxay istiqlaaliya inuu isku kaaftoomo cuntadii baad usoo dhigaysaa isagoo 2 sano jira markaas taada afka oo gurbu diidaya wuxuu doonaya isagoo inuu farihiisa la galo oo uu walaaqdo dhaqanka hooyooyinkeenuna waxa weeye sabir ma jiro ilmaha yar cuntada waar cuno oo aad cuni waayo waa la dilayaayo waa kan hadduu istaado isagoo hanagu daadaadin meesha maanta oo dhan baan masaxayna bal waxaan sabir looma laha waxa la doonaya ilmihi yaraa in la jujuubo oo aan xorriyadda laga xidho haddii uu isku dayo wax inuu qabtana waaba la dilayaa dhirbaaxa loo dhiibaya ilmahaas markaa waxa uu yeelanaya sifada ah dambiile u xishoonaya dambiilu dareemaya haddii uu wax isku dayo inuu qabto albaabka markuu ka sii baxayo aduu dareenkaaga eegaya hadduu ka arkay inaad si u yara diidantahay dib uu fadhiisanaya yadda ayaana lama haynay baniyadiisa ku jirta haddii kale hore uu soconaya laakiin ilmi yara markaa wuxuu doonaya surwaalkiisa inuu isagu xidho kabihiisa isagu xidho cuntadiisa isagu cuno oo aan loogu tegin waa 1 sano ilaa 3 sano markuu 3 sano soo gaado ilaa 5 sano waa xilligu ilmuhu isku dayo inuu wax ibtikaaro initiative waxaan yiraahdaan wuxuu isku dayaa inuu isagu wax sameyn karo hal abuur in la yimaad hal abuurka ugu horeeya ilmuhu la yimaadana waa hadal jumladu isagu sameysanaya jumladahaas qaarkood hadduu doono waa dambiyo sida ogaad culimada barbaarinta waxay yiraahdaan ma jiro eray ilmaha yar dambi agtiisa ka ahi markuu yar yahay doctor halka markaad marayso hadalka ilmaha uu sameysanayo miyaana qayb ka ahayn intii uu yaraa wixii uu maqlayay inuu ku hadli karo way kolloki waa run qayb bay taas ka tahay waxaa kaloo jira qayb kale oo khiyaali oo ilmuhu iska leeyahay oo isagu uu wax samaysanaya iminka matalan carruurta markay yar yihiin sheekooyin khuraafaad ama inuga sheekeynaa dawaca qayliso iyo libaax baa yimid xagaa lagu arkay libaax sheekeynaya waxaa khuraafiga ilmaha yar marka looga sheekeeyo isaguna wuxuu isku dayayaa khiyaaligiisa wax noocaas inuu sameeyo waxa uu sameeyaa deegaanada waxa aragtay lagu leeyahay qof waariya ilaahay ka baq sukoona ilaahay waa aniga وأنا دلمي يرى آخران ودرنا أنا درينا ترى هذا المهير أنت أو يريهاي متشرو هذا المهير أكتيس الدم بكاي محل السمانة خلطات كل مه وقلوا على سكين تريا وحي وناكسنا وكهنا لنا ولا دير قلنا خلط بو قالوا مثلا إلهي بوحك الشجاع ما الدين توحك الشجاع ما هو يدي بعايبة وحو ملها سكان ما لقار له هذا وحك سما الوعية له الصومالي ده ودك تعي إذا ملها اللي سكوا عاية ومغلى وحي وأديك كقولي
وين معنا كسو قادن هداد ku weynaysay ilmihi yaraa maskaxdiisa dhex galaysa ha hebel uu ka xanaaqaya markaad ku tiraahdo hooyada waxa ku samee laakiin marka qorka meel loo kana caayada uu sameeyay ilmaha ku din laakiin caayada xumaanteeda ilmihi tus inay waxaas xilli baa jirtay ilmuhu uu aqbalaya sababeynta 6 sano markuu ilmuhu soo gaadho waxa aqbalaya in wax loo sababeeyo 6 sano intuu ka yar yahay sababeyn ma aqbalayo wa kulama fahmi karaba shaygan aad ka sheekayso kulama fahmi karo sida awgeed wadada ugu wanaagsan waa maxay khaladka ilmuhu uu galo waa inaan lala yaabin laakiin waxa wanaagsan oo uu sameeyeen ku dhiirigelinayna mata waxa aragtay ilmaha yaraa kugu ag tukanaya isagoo 4 sano jira madaxa ka dhunko ma sha Allah salaad oo kaaso dareen noocaas gali khalad buu sameeyay ka soo qaad inaad arkeenin oo kale واسم صحيح خلد كاسالك سكو بابايا maxaa qofka waxa imka dad khalad aniga iga gasho dabadeedna aan kugu canaanto oo hadana baritaan kugu canaanto wad yaabaysaa soo soo waxan wax weyn bash doctor kuma oran waa nooc mad leeyahay waa un kula yar kaftamay laakiin ka waran kaftankaaga waan diiday laakiin waan iska indha tiray maalin dambe aadna ku celinmay sida aadna niyad xumo imaad qaadin anna niyad xumo kuma qaadin موضوعي halkaas ku dhamaad ilmaha markuu 6 sano soo gaadhaabo aqbalaya sababayn laakiin inta ka horeysa ma aqbalayo marka uu soo gaaray ilmihi yaraa 5 sano marka xilliga Sheekh Jimcaalow uu ilmaha yar uu sameeyay initiative-ka waa xilliga ilmaha yar uu baahan yahay dhiirigelinta waan gartay hadaluu ku hadlaya fikradu soo jeedinaya waxyaabaha uu sheegayo dhan waa in laga aqbalaa wixii xun ee lagu arkana waa in indhaha laga laabta laga soo qaada inaanay dhicin oo kale laakiin haddii ilmihi yara kelmadii u dhaqaaqaba waraaqu istul saarey ciid buu dhoobo ku shubaya markaas waxa la ciid buu biyeento ku shubaan wadeedna wax ka sameynaya shimbiruuq sameynaya dhagaxaan gidaaradu wax ku qarqoray waa inaan ilmihi yara la qashqashin karaatoon waxa soo dhan waa loo deynaya way kaas waa stage-ka saddexaad weey aan soo koobo stage-ka afraad waa stage-ka 5 sano ilaa 13 sano u dhaxeeya waana stage mid ka mid stage-yada ugu muhiimsan waa xilliga ilmuhu madrasada uu galo iskuulkana la geeyo dhinac waa bari school age-ka waa sanadkii ka horeeyay iskuulka waa 5 sano markuu gaadho ilmuhu iskuulka u diyaar garooba 6 sano jir buu iskuulka ku bilaabay malcaamadaba ilaa iyo 13 waa inta ku dhex jiro dugsiga hoose dhexe ilmuhu xilligaas waa xilligu u baahan yahay taageerada maskaxeeda ugu culus waa karta talaabo kasto ilmahaas uu qaado oo wanaagsan dhiirigelin buu xagga hore uga baahan yahay qur'aan malcaamadu dhigtaa faatixadii buu garan waayay acuudu billaahi wuu saxay maanta bisinkii buu ku dari waayay wuxuu u baahan yahay si uu hore ugu socday ilmahaasi acuudu billaahi min ashaytaani rajiim buu saxay somaha ha lagu dhiirigeliyo maasha Allah maanta mar hadda acuudigii saxday qadadaadu waa xaggayga naanacaan ku iibinaya abaalmarintiisa waan la diyaariyaa sanad hadduu faatixada ku jiro maalin walba inta uu hagaajiyeen ku abaalmarinayna inagoo ku dhiirigelinayna inuu hore u socon karayo imka ilmihi yaraa isagoo fasalkii uulada dhigtaba imtixaanka dhacaya waraaqii bay waalidku soo weegeen waalidka Soomaaliyeed ma ku sheegaya waraaqu soo weegay waxa arkay maado uu dhacayo matalan walaag ciyaalka adiga kula midka way baaseen sidanay noqdeen meel bay gaadheen adigu damiin baa tahay dameer baa tahay xayawaan baa tahay lax baa tahay ilmihi yaraa waxa marka lagu dhaado muxuu yeelanayaa fikir ah inferiority inuu dadka kale ka hooseeyo wuxuu aaminayaa caruurta isaga la asaaga inuu ka hooseeyo oo uu yahay qof waxa weeye aan macno badan aan ku fadhiyin oo ciyaalka la asaagiyo dhulka ka yeelo xagga dambe fasalku warshay marka xitaa su'aal macalinku weydiiyo ka jawaabi maayo kulliba ku xarfaanta haba ka jawaabay buu kuleeyay marka waxa weeye cabsi baa ku bilaabantay iyo hooseyn waana ta keentay qofka ilaahay isagoo weyn baad arkaysaa isagoo bilahana inuu dadka iska daba socdo xagga dambe ma anu intaas ay ku filaan waa rumaha intaas ay kugu filaan hore u soco han baa loo baahan yahay inaad wax qabato meel gaadhaaba la doonaya ma qabanayo waxa ka bilaabantay markuu yaraabay ka bilaabantay markaas waa xilligaas waa xilliga ugu mis waana xilligan waalidiinta kula talinayno inay caruurtooda inta yar ay la yimaadaan lagu dhiirigeliyo aayad buu saxay dhiirigelinsi ila macallimiinta stage-ka shanaad waxa weeye Sheekh Jimcaalow ana soo koobaya waa stage-ka u dhaxeeya 13 ilaa 22 waa xilligu ilmaha yar uu raadiyo cid uu noqon lahaa identity-giisu raadiyo Soomaalida kaarka lagu galo jaacadaha ID-ga la waa identity muxuu raadinayaa waxa uu noqon doono marka ilmaha yar wuxuu ka fikirayaa ma sheekh baad noqon doontaa ma wax noqon doontaa mid heesaad noqon doontaa ma ciyaaryahan baad noqon doontaa aabaha laga rabaa inuu u sameeyo cid uu ku dayan lahaa cidda ugu muhiimsan tahay inuu ku dayano waa aabihii stage-kaasi lixaad ee 22 ama waxa la dhahdaa 18 ilaa 30 intuu ilmaha yar ka gaadhayo waa xilliga uu qofku ugu baahan yahay inuu sameysto wehel oo waxa loo yaqaan intimacy jacayl bil ilmaha yar doonaya wuxuu u baahan yahay qofku inuu helo lamaanaha uu doonayo inuu helayo waa maxay gabadhi waxay u baahan tahay wiilkina wuxuu u baahan yahay gabadh yaani inuu cid u nolosha la wadaagaa buu u baahan yahay
stagekaas waa stageka u baahan tahay qofka in lagu dhiirigeliyo sidee buu u dooranayaa qofkii noloshiisa la wadaagi lahaa qof nooceeya baad nolosha la wadaagaysaa sifooyinku uu ku dooran lahaa in loo tilmaamo waa marka uu u baahan yahay hagid buu u baahan yahay haddii aabihii markii uu yaraayo uu soo qaangaadhay uu arkay inuu qaangaadhay uu halkaa uga soo bilaabay sida dumarka loo doorto nolosha ujeedka iyo hadafka laga leeyahay ujeedada ah inuu uba doonayo waxyaabaha la xidhiidha waxaasoo dhan ilmahaas wuxuu yeelanayaa sifo xoogan oo hadhowta wax uu ku dooran karo stageka 7aad waxay dhahdaan waa 40 ilaa iyo 65 qofkii uu soo shaqeeyey caruur buu soo dhalay ganacsiyuu soo samaystay xilliga 40 markuu soo gaadhay waxa uu marayaa xilli isku filaanshiya waa xilliga laga doonayo inuu ka fakaro jiilkii ka hooseeyay inuu jiil soo saaro oo uu noqdo qof waxa weeye generationka ka dambeeya iyo jiilka ka dambeeya ka fakaraya qofka xilligaas oo kale waa xilliyada ay muhiimka ay tahay barbaarintiisii koowaad wadooyinka uu soo maray natiijadeeda inuu qaato oo haddii si fiican loo soo barbaariyey natiijada uu qaadanaya waxa weeye inuu arko waxa weeye jiilka dambeeya isagoo ka fakaraya maxaan ka tegi doonaa wax wanaagsan inaan sameyno caruurta barbaarino dhaqan wanaagsan soo saarno nolol cusub sameyno isagoo halkaa ka fakaraya arkaysa stageka 8aad ugu dambeeya waa marka uu qofku soo gaaro 65 iyo wixii ka weyn stagekaasi waa stageka qofku wixii uu soo sameeyay eeg markii hore 40kii hore isaga nolol iyo reer soo dhisanayay markuu 40 soo gaaray ilaa iyo 60na wuxuu ka fakarayay jiilka ka dambeeya suu soo gacan qaban lahaa 65 markuu maray waa xilli uu retire u yahay waxa ujeedka ugu weyn marka uu ka fakarayaana waxa weeye inuu naftiisa ku qanciyo yiraahdo wallahi waan shaqeeyay jiil baan soo saaray dad wanaagsan baan barbaariyay 8 stage bay dhahdaan ama 8 marxaladood bay dhahdaan waxa weeye namuud difli waa uu maraa ilaa iyo inta ilmuhu ka dhimanayo